weerar loo geystay laba mas'uul oo kala ah Farqad Jaamac Xirsi iyo Boqor Iimaan oo weerar aad u qolxin lagu geystay magaalada Hargeysa taasoo haddaan qurbo joogta dhalinyarada beesha Gabooye aan aad uga damqanayno taasoo dhibaato weyn u geysanaysa dadka ku sugan magaalada Hargeysa ka Gabooye ayna loo geystay dulmiyo noocaas aad baan uga xunahay kadib la barto tilmaamado مسؤوليين beesha Gabooye oo dhaqdhaqaaqaya ee ka soo horjeeda xuquuq la'aanta ku haysa waddanka Soomaaliland marka waxaan leeyahay aad baan u cambaaraynaa cidii weerarka ka dambeysay ama cidii soo abaabushay annagu cid farta ku fiiqmayno laakiin weerarkan waa la dhacay waana lagu fuliyay mid isagoo gaadhigiisa wata ayaa lagu bukooriyay ama lagu buriyay Boqor Iimaanna waxa lagu weeraray gurigiisa aad baan uga xunahay dhalinyarada beesha Gabooye oo qurbo joogta aad baan uga xunahay aad baan u cambaaraynaa dadka ka dambeeyay falka dawladda Soomaaliland waa in ay soo qabataa dadka ka dambeeyay arrinka qorshe xun la geystay